Isbitaalka Superlative Healthcare ee magaalada Mandera ayaa maanta qabtay olole wacyigelin oo bulshada lagu barayay khatarta iyo ka hortagga cudurka kansarka. Ololahan ayaa ka bilowday xarunta isbitaalka oo ku taala agagaarka Takbir Petrol Station ee xaafadda Township ee magaalada Mandera, halkaasi oo dhakhaatiir iyo saraakiil ka tirsan Mandera Enforcement ay ka bilaabeen socod wacyigelin kaasi ay ku soo mareen wadooyinka magaalada, ayagoo socod ku soo maray agagaarka suuqa Baasbaag ilaa iyo bartamaha magaalada. ujeedka ololahan ayaa ahaa in bulshada lagu wacyigeliyo muhiimadda baaritaanka hore ee kansarka si cudurka loo ogaado xilli hore loona daweeyo. Isbitaalka ayaana waxaa weli ka socda baaritaan bilaasha iyadoo ay ku sugan yihiin dhakhaatiir ka yimid magaalada Nairobi. Kwanza kabisa ningependa kuwashukuru wote waliokusanyika hapa. Tuko hapa kwa niaba ya Superlative Healthcare ili kufanya uchunguzi ya magonjwa ya saratani, haswa yale yanayohusiana na kina mama, njia ya uzazi, matiti na prostate. Kwa majina naitwa Dr. Calvin Abuya. Mimi ni daktari mwenye taaluma ya kutibu magonjwa ya saratani kwa ujumla. Ningependa kuchukua fursa hii kuwahimiza wote ambao wamekusanyika hapa wachukue nafasi ili kuja hospitali hapa kupimwa magonjwa haya, na upimaji wa magonjwa haya ni bure kwa wiki hii, na pia matibabu pia tutatumia SHA. So kwa wale ambao wako na wagonjwa nyumbani wanaugua magonjwa haya wanaweza kuwaleta, tutawashughulikia. Waa mahadsantihiin maadaama maanta ilaa weegan dhamaale aan ku kulannay oo haddana maanta aan ma arkaysa wacyigelin aan samaynay oon u samaynaynay ma arkaysa cudurka la yiraahdo cancer oo isbitaalkeedana aas yahay Superlative Healthcare oos yahay oona ma arkaysa dadkii weegan dhamaale la daaweeyey oo la fiiriyey dhammaantood meeshii lagu daaweynayo waa meeshan. marka dadweynahana waxaan u sheegaynaa in ay ka soo qayb galaan maadaama isbitaalkii ugu horeeyay oo kansarkaas cudurkaasay tanaasahu gala minku gala ilma galeenkana waa gala dhammaantaas meelahaasay to dhan u gala. marka anayti waxaa la rabaa dadka inay imaadaan oo isbitaalka anayti ay iska daaweeyaan. isbitaalkaasna wuxuu ku yaalaa Takbir Petrol Station ayuu ka soo horjeedaa. marka dadweynaha waxaa la rabaa inay ka soo qayb galaan insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadsan. meeshan waxaa iskugu imaanay maanta in laga wacyigeliyo cudurka kansarka oo na dilaan noqdi oo dadweynaha oo adduunka meel walba farakul ku haya ayaa Superlative isbitaalkan laha ayaa bariyan dhamaale waxaa ka socotay wacyigelin ka socotay oo free screen ka socotay. marka waxaa waaya waana Mandera waaye meeshan cudurkan cudur dilaawa waa cudur meel walba galaawa dhuntaas galaa naasaha ayuu galaa meesha laga saxaroodo waa galaa meelaas galaynin malaha. marka cudurka dilaaga hadduu yahay waa in oo daawada raasada oo dhakhaatiirtu waxay noo sheegaan aan qaadana wixii daawo noola qoro aan qaadana ayaa laga maarmaan ah. mid kalena waxaa waaye dadka dadweynaha inay isu sheegaan oo cudurkaanay la wacyigelinaya dantooda ku jirto kulligeen danteena ayaa ku jirto. dadka xanuunsan oo guryaha joogo ama as cudurka ku cusuban yahay ama iska shakiyaan oo cuntada aan laqi karin oo cabitaanka iyo cuntada ay dhabaysa waa inay halkan imaadaan oo isdaaweeyaan isfiiriyaan isbiimeeyaan dhakhaatiir loo keeni. shaqada hadda meeshan ka socota iska ciyaar maaha, waa shaqo loo haayo dadweynaha loo haayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa mahadsantihiin maanta intaan ku kulannay kulankeena maanta waxaa ku xisaabsanaa cudurkan cancer oo dilaaga ah oo daawo loo haya dadkana ma fahansana. dadka badi cudurka cancer stage uu leeyahay, stage koowaad, labaad, saddexaad, afaraad waa. marka qofka ma garan kara in laga baaro moogi markii cudurka stage uu dambeey ayuu xanuun iyo waxaas dareemaa. mar intii kala horo waxaas dareemaa malaha. waa ina hadda baaritaan aad u yimaadaan. baaritaankana bilaash aan idinka dhignay weegan. marka daawooyinkana waa helaysaan. qofkii horaan cancer lagu helayna waa daaweynayna, kuwii cudurka qabana waa sii daaweynayna. marka daawada waa la helaa. qofka isaga caafimaadkiisii waxiisa kule in la socda la rabaa. marka xanuunkan waa zaid ugu soo ziyaaday wadankeena, zaid ugu soo ziyaaday countigayna, zaid ugu soo ziyaaday. marka waa inaan xoog saarna. marka qaybtan caafimaadkana waa county waa ka maqan tahay. meel kale hadda countiga gudaheeda cudurka cancer lagu daaweynay kala malaha. marka kulligiin waa idin soo dhaweynaynaa. dadka jiiraanka waa soo dhaweynaynaa.
dadka Soomaaliya joogaan kuwa Ethiopia joogaan jiraanka kulli waa soo dhaweynaynaa sida gacmo furaa lagu soo dhaweynaynaa qof meel la seexdana bukaanka meel la seexdana waa leedahay isbitaalka qofka hadduu meel dheer ka imaana waa la seexinaa ilaa uu ka caafimaada marka saas ay idinku wacgelinaynaa soo imaada insha Allah. Assalaamu alaykum waraxmatullah. Guyyaa kana ulaa superlative tana waltiga dhufne waninu walbarasiisu feenu aga cudurkii kaansa ka normatana baaru ka baaritaankiin baaru jiranileen inin free ka kana gadiyada marka taxtariileen laf jirti wani fudhatanileen kaadin kay shaa kayna ninkani fudhanna marka gadiyada dalkanat insha Allah. Isbitaalka Superlative Health Care ayaana waday olole caafimaad kaasi oo diradda lagu saarayo ogaanshaha hore ee cudurka si bulshada xilli hore ay u ogaadaan khatarta cudurkan waxaana wili socda baaritaanada iyadoo tiro badan oo shacabka Mandera ay ka soo qayb galeen. Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan, warbaahinta Daawa, Countiga Mandera.